ogeysiinaya inaan show ku qaban doono Hargeysa 7 bisha October waa maalin khamiisa oo jimco soo gali doona hadii Ilaahay idmo and also tigidhada waxaad ka heli doontaan Waqal Studio Qurux Bila Jumeera hallku waa Royal Palace soo dhawaada kitigin waana khamiiska hadii Ilaahay idmo wallah fanaanada Kiin Jaamac Yare oo kamid ah fanaaniinta loogu jecel yahay deegaanada Soomaalida oo muddooyinkii u dambeeyay Hargeysa ku sugnayd ayaa caawa taariikhdu ay tahay 7 bandhig faneed ay ku qabanaysay hotelka The Royal Palace Hotel ee Hargeysa waxa ka soo kordhay war cusub arkaan ku baana deskahay jacayla imahad beernaxayno doodtayga mahad fanaanadan ayaa muddadii yarayd ee Hargeysa ay joogtay waxay ku duubtay heeso cusub oo la yaab leh balse may soo saarin si aanay bandhiga heesaasi aanay carqalad ugu noqon qabsoomitaankiisa fanaanada oo heesaheeda inta badan ku soo qaada ama ku soo duubta dharka noocyadiisii ugu dambeeyay dunida laga isticmaalo oo surwaal iyo garamaano badan ayaa heesahan cusub ee Hargeysa ay ku duubtay yihiin kuwa ka sii cajiibsan haddaba bandhigan oo caawa oo jimcaha dhici lahaa ayaa waxa guud ahaanba joojisay wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland oo dhawaan uu la wareegay Sheekh Cabdirasaaq Albani oo kamid ah culimada waaweyn ee Somaliland wasaxaafadeedka lagu joojinayay bandhiga iyo sababta ayaa u dhignaa sidani ku socota mulkiilaha iyo maamulaha Royal Palace Hotel Hargeysa og wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland og taliyaha ciidanka booliska Jamhuuriyadda Somaliland og barasaabka gobolka Maroodijeex og agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ujeedo joojinta xafladda bandhig faneed mudane si aad ula socoto wasaaradda diinta iyo awqaaftu waxay qaranka wakiil uga tahay guud ahaan diinta iyo ilaalinta dhaqanka iyo anshaxa suuban haddaba waxa lagu farayaa in la joojiyo bandhig faneedka la qorsheeyay caawa oo ay taariikhdu tahay 7 October 2021 kaasoo ay qabanayso fanaanada Kiin Jaamac maadaama aanay jirin wax ogolaansho ah oo ay bixisay guddida awoodda u leh bixinta ruqsadaha bandhig faneedyada sida ku cad xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer lambar 51 oo ku taariikhaysan 2012 waxaan filayaa inaad u hoggaansami doontaan amarkan Allah mahadle Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland ayaa ku saxeexnaa fanaanada Kiin Jaamac ayaa bandhigeedani waxa tigidhaan fara badan u goostay dad badan oo shacabka reer Hargeysa iyo kuwa ka yimid gobolada kala duwan ee dalka iyagoo xiiseynaya daawashada heesaheeda